halkani waa RTN. kulan wanaagsan halkani waa RTN magacaygu waa Intisaar Saalax Xuseen ku soo dhawaada barnaamijka Sooyaalka Nolosha oo hadahan aad uga barateen telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi waxa barnaamijka igala qayb galayo oo barnaamijka markaasi ila daadiinaya wariyaheena Maxamed Baasha Khaliif waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka taariikhda hogaamiyaasha Afrika iyo xiljaceelka hogaamiyaasha Afrika anagoo markaasi caawa doonayna inaan ku eegno taariikhda hogaamiyaha 93 jirka ah ee xilka dalka Zimbabwe goordhow iska casilay iyo sidoo kale anagoo la barbar dhigi doono muddada uu hayay hogaamiyahaasi xilka ee 37 sano ah wadanka Mareykanka oo ah wadan horumaray markaasi isbedelka hogaamiyaasha ay sameeyeen ku nagaashaha xilka iyo xiljaceelnimada hogaamiyaasha Afrika waa runtii mid aad dadka Soomaaliyeed ama taariikh ahaanba loo yaqaano inay yihiin hogaamiyaasha Afrika dad aad u xiljecel hayaanka umada qaaradda Afrika ay dunida markaasi kula bartamayeen dhinacyada horumarka dhismaha tiknoolajiyadda iyo aqoontaba sooyaalka dunida madaxda xilhaynta dheer caalamka waxa kamid ah madaxda Afrika qaarkood waxa xilka looga qaadaa si xoog ah kuwa waxa laga yaabaa in lagu dilo iyagoo halka qaar kalena afgambi looga qaado xilka qaarna cimriga iyo caafimaad ahaan markaasi xilka uu u diido dhalinyarada qaaradda ku nool waa kuwa u badan faqri aanan haysanin hindisa dawladoodu ay markaasi u dajiyeen badi waa kuwa qaab muhaajirnimo markaasi ugu carara dalka Yurub iyo kuwa markaasi nolosha meel ka gaaray waxaan eegaynaa oo aan caawa dul istaagi doonaa saan hore idinkugu sheegay taariikhda madaxweynaha ee xilka iska casilay ee dalka Zimbabwe ee 93 jirka ah oo awood ciidan xilka dalkaasi lagala wareejiyay kadibna cadaadis badan uu ogolaaday inuu xilka iska casilo Robert Mugabe waa madaxweynaha soo maray wadanka Zimbabwe ee haatan xilka iska casilay waxa uu dhashay 22 bishii Febraayo 1924 waxa uu madaxweyne dalkaasi markaasi uu ahaa laga soo bilaabo 1987 waxa lagu xusuustaa in Mugabe uu markaasi hore u soo ahaa gudoomiye urur siyaasadeed la magac baxay Zimbabwe African National Union oo loo soo gaabiyo ZANU-PF intii u dhaxaysay 1975 ilaa 1980 wixii markaasi ka dambeeyay waxa uu sameeyay horumar dhanka siyaasadda ah waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha dalkaasi sanadii 1980 ilaa 1987 xilligaas wixii ka dambeeyay waxa uu noqday madaxweynaha dalka Zimbabwe oo haatan uu xilka iska casilay Intisaar madaxweynaha xilka ka degay ee wadankaasi Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe waxa uu ku dhashay magaalada Khartoum ee koonfurta wadankaasi ku taala waxa uu ka soo jeedaa qoys faqiir ah waxaanu waxbarashada heerarkeeda kala duwan badi ku soo qaatay dalkaasi ugu dambeynna waxa uu ka baxay jaamacadda Fort Howard oo ku taala magaalada uu ku dhashay Mugabe markii uu ka soo baxay jaamacadda waxa uu noqday macallin iskool isagoo ka soo shaqeeyay iskoolo kala duwan oo ku yaala waqooyiga iyo koonfurta dalkaasi Mugabe waxa uu ka qayb qaatay wax badan mudaharaadyo iyo cadaadisyo gumeystihii Ingiriiska ee gumeysanayay wadankaasi Zimbabwe xoog lagu saaray inuu isaga baxo gumeysiga dalkaasi kadib markii gumeystihii Ingiriisku gumeysanayay wadankaasi Zimbabwe waxa uu ka warhelay in Mugabe uusan ahayn nin dab yar shidaya caqabadna ku yahay in joogitaanka Ingiriiska ee Zimbabwe
kadib ayaa la xiray isagoo xirnaa intii u dhaxaysay 1964 ilaa 1974 markaasi ayuuna xorriyadiisa dib u helay Robert Mugabe waxaana garwaaqsay inuusan sii joogi karin wadankiisa Zimbabwe isagoo u hayaamay wadanka Mozambique oo ay daris yihiin halkaasi waxa uu ka bilaabay kacdoon kaas oo kaga soo horjeeday gumaystihii Ingiriiska waxaa lagu xasuustaa inuu u ahaa buddiga xisbiga iminka wali talada dalkaasi haya ee ZANU-PF dhawaana waxa madaxweynaha wadankaasi loo dhaariyay ku-xigeenkiisii Emerson Mnangagwa Mugabe 37 sano oo xilka dalkaasi hayay markii uu ka degayay waxa uu doonayay in xaaskiisa Grace Mugabe uu ka dhigo madaxweynaha ee dalkaasi laakiin waxa ka soo hormartay awoodda military oo dalkaasi la wareegtay 17 sano Robert Gabriel Mugabe waxa uu ka tagay dalkiisa isagoo aan wax weyn ka bedelin sidii uu bari hore ahaan jiray faqri baahsan ayaa ka jira dhaqaalaha dalka waa mid aad u hooseeya dhismaha dal ahaaneed waa mid liita dhalinyarada dalkaasi waa kuwa saboolnimo daris la ah xukun iyo dhaqaalaha waxa markaasi ay ku koobnaayeen qoyskiisa iyo rag isaga ku xeeran haddaan isbarbar dhigno dalka dunida ugu horeeya awood ahaaneed iyo dhaqaalaba ee Mareykanka 37 sano uu xilka hayay madaxweyne Robert Mugabe dalkaasi waxaa soo maray 7 madaxweyne oo kan ugu yar dalkaasi uu xukumayay muddo 4 sano ah haddii aan soo qaato magacyada madaxweynayaasha soo maray dalka Mareykanka 37 sano waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter Ronald Reagan George W.H. Bush Bill Clinton George W. Bush Barack Obama iyo sidoo kale madaxweynaha haatan dalka Mareykanka talada haya ee Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka waxay ahaayeen qori isku dhiib siyaasadeed iyo fakar ka maran xukun jacayl arrimaha ugu weyn ee Afrika haysta waa dastuurka oo ninba sidii uu rabo markaasi u adeegsado ilaa ay hadda wahagaag waxaa barnaamijkaasaan hore idinkugu sheegay caawa ila daadihinaya waryaheena Maxamed Baashe Khaliif haye Maxamed warbixinta kadib intisar waxaynu caawa runtii gorfaynaynaa taariikh fac weyn oo dunida oo dhan iyo caalamka oo dhan laga hadalhayo oo ah dhawaan waxaa xilka ka degay madaxweynihii wadanka Zimbabwe Robert Gabriel Mugabe 37 sano ayuu dalkaas xukumayay ra'iisul wasaare ayuu ka soo noqday 1980 ilaa 87 1987 ilaa sanadkana ku jirno ee 2017 waxa uu ahaa madaxweynaha wadanka Zimbabwe markaynu taariikhda dib u eegno wadanka Zimbabwe waxa uu ka mid ahaa Robert Mugabe dadkii ugu cadcadaa markii ay xorriyada doonayeen ay xorriyada ka qaadanayeen wadanka Ingiriiska waxa uu buddiga u ahaa xisbiga ZANU-PF la yiraahdo oo iminka wali ah xisbiga talada wadankaasi haya laakiin hogaamiyaasha Afrika waxa inta badan ay ku caan yihiin marka taariikhda sooyaalka madaxweynayaasha dunida la fiiriyo xukun jacayl iyo xukunka inay isku dhajiyaan waxaanu ka hadlaynay oo hadda soo qaadanay 37 sano oo Robert Mugabe xukumayay wadanka Zimbabwe wax weyn iskama bedelin 2017 markuu xilka si cadaadisa soo waliba 93 sano jir oo dhacaya ayuu wali doonayay inuu xukunka sii hayo hindisiisna wuxuu ahaa oo in uu xilka ku wareejiyo xaaskiisa Grace Mugabe qorshahaas iyo isqabqabsi siyaasadeed oo xisbiga ZANU-PF dhexdiisa ka curtay madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo hadda madaxweynaha wadanka Zimbabwe ayuu wuxuu ka qaaday xilkii dawladna uu baxsaday madaxweynuhu ka cararay dalka deeta militariga ayaa soo farageliyay siyaasadda wadanka Zimbabwe xukunkana waxay ka wareejiyeen madaxweyne Robert Mugabe kadib waxa loo dhaariyay Emerson Mnangagwa oo isaga hore ku xigeen uu ahaa madaxweyne ku-xigeen uu ahaa isaga ayaa hadda ah madaxweynaha Zimbabwe laakiin wali cadaadis ayaa jira laakiin taariikhda haddii aan dib ugu laabano 37 sano wali Zimbabwe waa faqri boqolkiiba in ka badan 60 dadkeedu waa sabool dhaqaalaha wadanku waxba iskama bedelin tiknoolajiyada iyo horumarka dhaqaalaha wadanku waa sidiisii 37 sano marka Mugabe markuu xilka qabanay ilaa hadda wax la tilmaamo oo Zimbabwe iska bedelay dadka isha ku hayay ma sheegayaan 37 sano uu xilka hayay Robert Mugabe wadanka dunida maanta ugu awood ahaan weyn haday noqoto militariga adduunka haday noqoto dhaqaalaha caalamka haday noqoto siyaasadda hogaaminta caalamka waddanka Mareykanka
soddon toddoba sano oo Robert Mugabe madaxweynaha Zimbabwe ahaa toddoba madaxweyne oo midba taariikh Mareykanka uga tagay ayaa soo maray dalka Mareykanka Jimmy Carter waxa uu ahaa madaxweyne caan ahaa oo Mareykanka soo maray gaar ahaan madaxweynaashii aad u horumariyay dhaqaalaha wadanka waxa xasuustaa Ronald Reagan waa ragga ugu caansan madaxnimada Mareykanka soo qabtay waxa kamid ahaa isaguna wadankaasi hogaaminayay Bill Clinton oo isbedelo waaweyn ka sameeyay wadankaasi George W Bush oo dagaaladii Iraq uu ku qaaday iyo hindisiisa uu ka fogaa in wadan xukumo laakiin ahaa in awoodda Mareykanka gaarsiiyo wadamada dunida oo siyaasad ahaan u ballaariyo Obama oo ahaa madaxweynihii dhaqaalaha Mareykanka soo celiyay markii George W Bush uu dhaqaalaha Mareykanka hoos galay dagaalka argagixisada ku mashquulay iyo Donald Trump oo madaxweynihii toddobaad oo xilligan talada haya isbedelo waaweyn ayaa dalka Mareykanka ka dhacay ha ka tagina Obama waxa uu keenay adeega Obamacare oo hadda madaxweynaha wadankaasi uu diiday adeegaasi in laga tago oo ogolaado aan la isticmaalin qorshihiisa qaaradda Afrika dhibaatada ugu weyn ee la tilmaamayo inay haysato aad u ragaadaysan wax kamid ah dastuurka dalka Mareykanka dastuurkiisa cidna kuma xadgudbi karto dastuurka ayaa ugu sareeyay maqaam ahaan wadanka Mareykanka iyo dunida wadamada horumaray kale laakiin Afrika waxay noqdaan baalal wax lagu xariiqo oo madaxweynaha markaas yimaado soo doona soo adeegsado Robert Mugabe 37 sano oo hayay Zimbabwe waxa dastuur ay wax xero qabanay ma jiro si allaalisi rawayo dalka uu xukumayay qoyskiisa iyo rag ku weerarsan ayaa talada iyo dhaqaalaha wadanka gacanta ku hayay dadkuna sabool iyo faqrayo badnaayeen hadda Zimbabwe 37 sano ka bacdi waxay shacabku ay markan ku soo baraarugeen oo dadkii 37 sano ka hor dhashay ay markaan arkayaan madaxweynahoodii koowaad oo isbedel ku yimaado oo ah madaxweyne ku xigeenkiisa markaan u imaano baashi markaan fiirino Afrika iyo xil jaceylka hogaamiyaasha Afrika runtii qof walba markuu xil qabto wuxuu jecel yahay inuu ku laabto mar labaad ilaa mar saddexaad inta markaasi loo ogol yahay inuu madaxweyne noqdo tusaale ahaan caawa adiga haddii aad madaxweyne noqon lahayd oo lagaaga dhigi lahaa Soomaaliya tusaale ahaan xilka ilaa imisa sana ay ahayn lahayd maadaama caawa barnaamijka aan ku gorfeynayno xil jaceylka hogaamiyaasha Afrika annagana aan nahay dad Afrikaana xaqiiqatan kuma dhihin madaas ahayn laakiin sooyaalka taariikheed ee dunidu way isbedelayaan oo maanta qofku Soomaaliya haduu madaxweyne ka noqdo wax weyn oo badan ma sii hayn karo xilka isbedelaya cadaadis soo kordhaya oo dunida oo dhan ka dhacaya oo soo kordhay laakiin waxa la socotaa madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre 20 sano ayuu xukumayay wadanka Soomaaliya afgan military ayuu ku qabsaday laakiin waxaanu caawa kala xuseynaa marka Afrika laga sheekeynayo dimuqraadiyadda iyo xil wareejinta Allah u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan madaxweynuhu ugu horeeyay ee taariikhda intuu madaxweyne noqday Afrika xilka si nabad ah ku wareejiyay marka garowsaday in laga guuleystay ee aan xukunka militariga ama xoog caadis ku sii qabsan ama rabshad sameyn ama mushkil sameyn marka Aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariisto waxa kamid yahay hogaamiyaasha adduunka laga soo qaato oo Afrika marka la fiirinayo xilka si nabadgelyo ku wareejiyay wagaag waxaan u gudbaynaa qaybaha kale ee barnaamijka waxaan jeclaan lahaa markan maadaama aan ka sheekeynay hogaamiyaasha Afrika iyo qaaradda Afrika inkastoo aan Mareykanka tusaale u soo qaadanay haddana waxaan codsan lahaa farsamayaqaanka heestii Afrika hurdooy anagoo markaasi dadka ku guubaabinayna oo markaasi ay dib u soo cusboonaysiisay ay u soo qaaday fanaanada Farxiyo Fiska كهريه هرودوي حليه يدادي هرودوي هدباعوناي هرودوي وهي أفريكاي هرودوي عادو كهريه هرودوي حليه يدادي هرودوي هدباعوناي هرودوي همالا سارا هرودوي أي سيديسي هرودوي له قابنايا الله مالا سارا هرودوي هاي سيديسي هرودوي له قابنايا دولي
dulli lama helante away hana dadadi dulli lama helante away hana dadadi doqoba abawsani waligeed halaysani sida xoolihi baaxira lagu lahoya doqoba abawsani waligeed halaysani sida xoolihi baaxira lagu lahoya hey 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 la la li la 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 awhe afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy halyeyadaadii hurudoy hadbaacunaye hurudoy awhe afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy halyeyadaadii hurudoy hadbaacunaye hurudoy ama la saaraa hurudoy haysidiisii waa hagaag heestaasi rabbi ha u naxariistay waxaa horey u qaaday howladii weyneed ee magool waxaana dib u soo cusboonaysiisay heestan farxiya fiska inta heestaasi waxyaabaha ay ka hadlaysa waxaa ka mid ah afrika hordoon kastoo la qaaday horaantii toddobaataniyadii iyo lixdameedii intii u dhexaysay oo afrika inteeda badan ay gumaysi ku jirtay soomaaliyana ay ka mid ahay wadamadii afrika in badan oo ka mid ah la taban taabinaysay inay ka baxaan gumaystuhu xigaas ayaa la qaaday laakiin waxaanu dib u xasuusinay daawadayaasha in heestan afrika inteeda badan weli ay hurdo xorriyadii kadib afrika inteeda badan waa laga hurdaa waxaynu eegi doonaa markana dabcan qaybo ka mid ah daawadayaasha oo aragtidooda waxyaabihii ugu yaabadnaa iyaguna nala wadaagay waxaan jeclaan lahaa markan inaan ku bilaabo baashii warqadda u horeysa daawadayaasha waxay nala wadaagayaan caawa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee noloshooda ay la kulmaan ayagoo markaasi dhanka facebooka nagala qayb qaadanaya aan ku bilaabo ustaad maxamed cabdulaahi oo ka mid ah daawadayaasha barnaamijka sooyaalka nolosha waxuu sidoo kale ka mid yahay asxaabta ama saaxiibada facebooka assalaamu calaykum ayuu ku bilaabo marka hore intisaar saalax xuseen waan idin salaamay adiga iyo bulshada soo bandhigaysa waxyaabaha ay arkeen aniga waxaa iigu yaabadnaa tiknolojiyadda cusub iyo dadkii hore dhibaatada kala haysata ayuu yiri hooyo Soomaaliyeed baa guri internet ku xiratay si caruurteeda oo dibadda jirta ay markaasi ay kala hadasho balse waxa guriga jooga ayuu yiri wiil yar oo jecel barta YouTube oo internetka dhaqsa markaasi lacagtiisa u cunaya ay maamadan isticmaalayso ma fahmaysa ayuu yiri hooyada Soomaaliyeed wiilka yar ee markaasi lacagta ku dhameynaya YouTube-ka way ku soo shubtaa maalin walba markaas lacagtu way go'daa kadib ay ogaatay in wiilkeeda yar lacagta uu eber uga siiyo YouTube-ka waxay sameysay maamadii network ay qaaday waxa ay ku xirtay armaajada quful weyn ayayna ku jabisay waxay tiri armaajada furaheeda aniga hayee bal isaga ha jabiyo waa taase ileen maba oga in wiilka yar uu bartiisa ka daawanayo fankii fiska ayuu yiri waxaad moodaa in heestii hadda aan daawanayna inuu la socdo nadwaga ayuu ku xiran yahay ayuu yiri u furan yahay hawshiisa wali si caadi ah ayuu u wataa marka wuxuu yiri taas ayaa la yaabadnayd taasna sheekadan waxay cadeynaysaa yani waalidka iyo dhibaatada tiknoolajiyada cusub ee markaasi kala haysato wuxuu yiri waa qisadii ama sheekadii ugu yaabka badnayd haye وهاجاك داودهاني وحاو جوجا مقالة مقدشة وحاي يرهذا بيري عبد السمد وبر أحمد وإن سلام يا دمانتين ويابيه يكو ياب كبنا طبعا السومر أنا جوحا كم بدها ضدك مقاعدة عجيب كفيسبوك كوقرتا أما أسريه مقاعدة فيسبوك
dadka aan aadka ula yahay waxaa ka mid ah yiri Erdogan dumaashadiis madaxweynaha wadanka madaxweynaha Turkiga wiilka sanka taaga oo gabdhaha santaag lagu ogaay gabdhaha santaag lagu ogaa wiilka sanka taaga heerka makiinada cajiinka gabadhooda nin wax bartay walaalkiis yarta taqaan sida weelka loo dhaqo gabdhaha hooshooda wiilka cidda bacweynaha iyo waxyaabo kale oo cajiib ah ayaa igu yaabandaaw yiri daawadahan intii aan noolaa arko waxyaabihii taariikh ahaan sooyaalkiisa waxyaabihii ugu waaweynaa ayuu daawadahaasi soo tahay wax yar haddii aan dul istaago horta wiilka cidda bacweynaha miya bacweynaha maxaa loola jeedaa bacweynaha gabdhaha ay arooska xirtaan sheekadan ilaa hadda ninka bacweynaha yani bacweynaha marka waxaan waa waxyaabaha dumarku ay dharka xirtaan marka dhawo gadaa bas dukaan lagu gado yani waxaan ayaa ugu qoran Facebook ayuu leeyahay waxyaabaha ugu cajaa'ibka badnaa ayuu soo qoray yarta alaabta dhaqda yarta weelka dhaqda gabdhaha waxa loo sameeyay inay weelka dhaqaan laakiin waxa kale magac kale oo cajiibka ah meesha ku jiro wiilka sanka taaga gabadha sanka taagto waa iska macquul laakiin wiilka sanka taaga waa hagaag maxaan sii gudbaynaa baashu daawadayaasha kale markaasi nagala qayb qaadanaya dhanka Facebooka Nuur Maxamed wuxuu dhahay salaamu calaykum intisaar waan ku salaamay magacayga waa Nuur Maxamed oo jooga magaalada Gaarisa salaanta waa laga reebay caaw inaad barnaamij la daadiinayso cidna ma ogeyn laakiin teedan wada qaadanayna Maxamed Baashe anigu waxa igu yaabadnaa ayuu yiri maalin maalmaha kamid ah anigoo raacaya matatu waxa loola jeedaa gaari bas marka wadankan laakiin matatu yaa laga yiraahdaa wuxuu yiri anoo matatu raacaya dadka xaafad ka qaado xaafad kala geeya yani xaafadiisa ayuu u socday aan rabo inaan gurigeyga u galbado markaan soo gala matatuuga show Facebook baan galay Facebook aan hore ka galay yiri matatuugina waa dhaqaaqay muddo markaan socday aan madaxa kor u soo qaaday meel aan garanayn ayaan arkay inay matatuugu markaasi uu marayo dadku waxba ma warsan ayuu yiri waxaan si degdeg markaasi u garaacay gaariga anigoo leh warjooji gaarigii baa la ii joojiyo yiri haddaan badagay meeshii la mari jiray laakiin aniga yara mashquulsanaa oo waxaan ku jira Facebook xaafadiina wali lama gaarin oo gaarigii dhex baan uga dagay wuxuu yiri wadadan way saxneed ama ka kadib mooto markaas meesha maraysa ayaan ku iri ii jooji mootada markii la ii jooji waxaan iri saaxiib meeqa ayaad igu qaadaysaa meel hebla ayaan u baahanahay markaas wuxuu ii sheegay yiri lacagta aan matatuuga ku soo raacay 4 jibaar lacag u dhiganta inuu xaafadeedii ugu geyn karo mar kale ayaan yaabay ayuu yiri taas ayaa iigu yaabadnay waxa sheekada ka dhadhansanaysa inuu la yaabo horta sida uu u saxnaa laakiin waxa qalday ay tahay isticmaalka social media oo Facebook uu ku mashquulsanaa xaafadii wadadii uu mari jiray garan waayay markaas uu gaarigii ka dagay markuu gaarigii ka dagana matatu kalama lahayn wuxuu qabsaday mootadiina lacagtu way ku badantahay inkastoo sheekada uu noo dhameystirin laakiin waxaan filayaa in qarashka markaas mootada ay tiri anaa kugu geynaya inuusan haysanin meeshii ku qabsatay dhibaato haduu haafay waxba kala go'ay marka haye ويهاي داودحني waxa isna uu soo qoray oo ka hadlayay waxa la yiraahdaa buu yiri doctor dariska xalaasha hadda magacyadii dariska xalaasha soo qorayay ninkii muqdisho jooga walaha magacyada igu yaabka badan wax kasta ma ka hadli kara ayuu soo qoray waxa aad u jecelahay inaan ka hadlo hawl igu qabsatay ama taariikh igu qabsatay magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya oo jooga oo gabar oo qawiil aan saaxiib nahay ay u timid arimo caafimaad intii joogtay ayay noqotay xaamil ama uur bilow ah waxa lagu wargeliyay inaysan nuuxsan karin oo aysan dhaqaaqi karin dhakhtarka ayaa ku wargeliyay waxa lagu wargeliyay inaysan socod badan sameyn karin oo gurigeeda joogto habeenada kamid ah ayay soo wacday gabadhaasi waxaana ii sheegtay in aan si degdeg u soo gaaro laakiin codkeedu aad ayuu u gaabsanaa ama nuxuus u ahaa oo si fiican uma maqlayn nasiib darro waxay ahayd sabti waxaana soo galaysa axad wadankaasna waxaa inta badan la dhigtaa banaanbaxyo ama isoo baxyo ay dadku waxay caabudaan ay ku xusayaan gabadhii waxay ii sheegtay in si degdeg aan ku soo gaaro laakiin meel kasta oo wadaa waxa taagnaa booliis iyo dad dibaaldegaya ma haysan taxi aan ugu imaado oo si degdeg meesha ay degan tahay ii gaarsiiyo
oo 30 kilomitir u jirta waxay igu noqotay inaa gabadhii aan soo xambaaro ilaa highwayga taasina waxa ay muujinaysaa buu yidhi sida Soomaalidu sida gaarka ah ay gabdhaha u ilaashadaan horta ninkan dariska xalaasha aadan horta u salaameynaa barnaamijka sheekadiisana runtii haddii ay ahayd sheeko saxan iyo haddii kale waxay qayb ka noqotay barnaamijka waan ugu talagalna qof walba waxyaabaha ugu yaabka badan leh in markaasi uu nala wadaago baashi waa nin asxaabta facebooka ka mid ah runtii aadan u salaamaya magaciisana dadka badanaa halku dhigiisa waxa waaye waa haddaan kala jecla marka aadan u salaameynaa barnaamijka sheekada uu nala wadaagay runtii inkastoo aan dhihi karno xogaa hindida lagu ogaayay inay gabdhaha qaadaan la xambaare gabar in la xambaa inta la xambaare yani wuxuu halkan ku soo qoray arrimo caafimaad oo awgeed taakaasidii oo shaqayn weeday baabuur aan waayay gabadhii oo dhakhtarku si degdeg ah inuu la kulansiyo ay u khasabtay inaan dusheeda ku qaadaan meeshii caafimaadka gaarsiin yani wuxuu sheegay waa qisadii igu xanuunka badneyd sooyaalka taariikhda soo martay waagaag daawado kale oo magaciisa lagu magacaabo waa gabar Safiya Maxamed ayaa lagu magacaabay tir Muqdisho aan jooga waxaan rabaa inaan idin wadaago sheeko hadda ka hor la iga sheekeeyay inay dhacdo oo ku saabsan balwada nin ayaa waxay tiri waxa uu lahaa balwad wuxuu la jooga xaaskiisa guriga habeenkii dhan waxa uu ku soo jeeday khaylaad guriga yani hooyada xaaskiisa hooyadeed saasaan u fahmay subaxii ayuu soo kacay wuxuuna galay suuliga wuxuu iska dhigay dharkii uu watay wuuna ka soo baxay suuliga markuu banaanka imaaday ayaa dadkii oo dhan goobta fadhiya kala cararay intuu ka daba orday wuxuu ku yiri maxaa idinku dhacay oo aad la kala cararaysaan isla markaana maba oga ayay tiri inuu qaawan yahay markaasi dadkaas ay isaas uga kala carareen sheekada waa runtii sheeko cajiib ah oo ku saabsan dhanka isticmaalka dadka isticmaalo kale qaadka inkastoo sheekooyinka qaadka laga sameeyay ay yihiin sheekooyin midba midda kale ka sii cajiibsan oo yaab mararka qaar waxaan isweydiiyaa sheekooyinka dadka muqayiliinta ma laga sameeyaa dadka qayila mase waa sheeko يعني رن أهو دعدا. أرتا ومندورية سيدا عاديا خاطرت الدنيا ذلك علمية برتية مسكحة يدي واحد سوا مندورية مسكحة حول مركا رادي غفك مسكحة يزعل دلها غلط حيلا بهذا ما صرت كان غنكر يا طبعا السجناء وحري هذا أمين يوسف محمد وحن هاي محمد أمين وجو نيروبي كينيا دعادي يقصر كبدنا ذو حياة أنا جاي عن صاحبنا هاي وأنا في صومالي جرنين ayaan tagnay hodol ku dhow iskoolka aan dhigano markaan fariisanay ayaa waxaan ku dhahay saaxiibow in badan ayaan cuntada anigu dalbayay maanta dalabka adiga iskale kadib wuxuu u yeeray weyd shakada abaarka hore ayaan qosliyay taan soo gudbin wuxuu u yeeray weytarka markaasuu ku dhahay maxaa cunto yaala kadib weytarka ayaa wuxuu u tahay cunooyinka iyo cabitaanada maqaayada yaala kadib wuxuu ku yiri jabaati maraq muu joogaa جباتي مرق مجوجا جباتي مرق إيك جباتي مرق مجوجا مرق مجوجا أنا أبي أقصر كبدنا يعني تاريخ السومر أي كم بداية إنسان تنتبه إنه تاريخها سويال كا اسم بدلية دولة شهدان أحيان كنا السنة واحد شراء runtii oo caawan aynu ku soo qaadanay barnaamijka intiisa badan Afrika oo badnayd iyo sooyaalka taariikhda Soomaaliya iyo soo maray Afrika iyo sida ay dhalinyarada Afrika ay u yihiin kuwa aysan dawladahooda u hindisin deganaansho siyaasadeed daawada halkan isaguna mar dhaweyd aan akhrinay wuxuu soo qoray oo ka hadlayay arintan ka hadlayno Afrika iyo xilka isku dhajiyaan madaxda si la socotid رئيس الوزراء هو رئيس دولة بريطن ديفيد كاميرون يسوى المدة كيسو لو السنة أو 6 سنة وقت ما تهاي أيو إسكع السلاين وهو جامي وضن كبريطن سوى الشيء إن أصلا وضن كرين تلانكا أي من كفور شيء بريطن ونا لونا بهاي إنه جامي عصور الهرا يعني فرق لي قد حياة إنه يسكت شيء 6 سنة سوى كذا إلا يفرفر هو جامي إنه يسوى المدة كيسو قد ما تهاي 6 سنة إنه إلى أنا ما وذكره هو جامين تدلك
qof ku habboon meesha ay dalku hadda aaday ama wajahayo in loo helo marka wuxuu leeyahay afrika dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan dastuurkii oo sidii la rabo loogu tumanayo iyo bisayl la'aan haysata madaxda waxaan isku qabtaa buu yidhi siyaasiyiinta miyaa xil jacaylnimada ku dhasha cilmiga dunida maanta kordhaya iyo tiknoolajiyadiisu mayse waxba ka baran dalalka adduunka siday xilalka la isugu wareejinayo midba uu taariikh intuu uga tago dhahay waxaasaa qabtay kii hore waxaas ma qaban marka arrinta la yaab kale waxa weeye badda mediterraneanka ama wadamadan badahan looga gudbayo midowga reer yurub taariikhdu waxay sheegaysaa wixii ugu xumaa abid inay ka dhaceen badaha wadamada masar iyo libiya sooyaalka taariikhdu waxay sheegaysaa bini aadamkii ugu badnaa ee ku baaba'ay biyo inay ku baaba'een xeebaha libiya iyo masar dadkaasi 84% waxaa la sheegayaa inay ka yimaadeen wadamada afrika ee ka hooseeya saxaraha Eritrea kamid ah Soomaaliya kamid ah Ethiopia kamid ah wadamadaas waxaa la leeyahay dadka ugu badan ee baaba'ay oo dhalinyaradii mustaqbalka u ahayd ama raasumaalka wadamada u ahayd marka hogaamin xumada buu leeyahay dawladahan iyo isjiidjiidka siyaasadeed ee jira ayaa qaybta ugu weyn ka noqonaya waxa haysta afrika wahagaag qaybihii dambe ayaan soo gaarnay waraaqaha aad ayuu u badan yihiin baasha saa aragto daawadayaal badan ayaan ka gaari doonin inaan yani fariimahooda akhrino balse barnaamijyada dambe ee sooyaalka ayaan ku qaadan doonaa waxyaabihii idinkula yaabka badnaa ee aad nala soo wadaagteen waxaan rabaa labadan daawada inaan kusoo gabagabeeyo waxa uu yiri qofkan magacayga waxa lagu bilaabaa magacayga waxa weeye maxamed cabdi saalax aad ayaan idiin salaamayaa intisaar iyo dhammaan bahda RTN TV waxaan rabaa sheekadii ama qisadii igu xanuunka badnayd ee aan la kulmo waxay ahayd dib aad u fara badan halkanna laguma soo koobi karo waxaan isbaranay gabar aad u qurux badan oo qiimo badan kadib aad ayaan isu jeclaanay waxaan noqonay laba ruux oo aan marnaba kala maarmi karin intii aan ku guda jirnay dhibaatooyin fara badan ayaan la kulanay xiriirkeennii ayuu yiri nasiib wanaag waxa uu yiri ugu dambeyn waanu isguursanay waxaan sidoo kale guurkeennii kadib aan la kulanay dhibaatooyin oo dhanka labada famil ah waxaan la kulanay dhibaatooyin dhaqaale oo runtii noloshii ayaa aad noogu adkaatay ugu dambeyn dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka familkaba markii ay noo kulmeen gabadhii waxa uu yiri waan kala tagnay xilligan hadda la taagan yahay dunida ayada ayaan ugu jecelahay laakiin duruufo iyo xaalado soo dhaxmaray awgeed ayay u kala tageen marka wuxuu yiri xilligan la taagan yahay dhibaato jacayl oo aan ayada u qaba ayaa jira iyadana waa ila mid tahay oo waa ay jeceshahay marka waxa uu yiri runtii intisaar walaal ila tali barnaamijka wuxuu ahaa dhibaatooyinka inay dadka nala wadaagaan maadaama ila tali la soo yiri inkastoo aanan ku fiicnin dhanka talada balbaash daawadahaas maxaad dhiilayd wallahi nimba waayihiisa qof meel ku abees bay ku jirtay marka adduunku hadba xaaladda marbay qofka la soo gudboonata laakiin saaxiibkaas maadaama tala uu na weydiiyey waxaan runtii mar kula talin lahaa samirka inuu xoojiyo sooyaalka dunidana saa iska imaanaya taariikhdu hadda meel bay joogtaan laakiin subax un bay ku soo gaari doontaa samir ayaan oran lahaa wahagaag daawadaha u dambeeya waxa yiri Nuurdiin Xaaji Maahir aniga waxa markaas igula yaab badnaa adduunka intaan ku noolaa nin la weydiiyey kulaha quraanka kariimka meeqa suuradood ayuu ka kooban yahay balse nasiib daro garan waayo ninka Soomaali ayuu ahaa oo haddana kolka Soomaalida ay yani Soomaalida ay dagto waa fajac يعني halkaas ma fahmin laakiin waxaan u fahmay inuu ugu la jeedo yani waan la yaabo qof Soomaali oo aan quraankii aan garanayn waxa jira dad badan oo waayeel ah oo aan markaas fursad u helin ama baadiyaha ku dhashay laga yaabo quraanka kaliya inay ka yaqaanaan inta yar salaadii ay ku dugtaan ha korkaas ka maqlaya salaamaha Soomaalidu isku salaanto waxa kamid ah waxaas bay Soomaaliya quraan 14 boqolka quraanka marka
hormar baa moodeen booliska Soomaaliyeed u badan tahay laakiin waa fajac qof 114 quraanka yani qofka baadiyaha jooga ee xataa waligii quraanka dhigan ee xoolaha raaca waxa laga yaabaa inuu salaanta ka maqlay telefoonka markii lagu wada hadlayo liilaad 114 hebel ku soo salaamayo marka dhammaan daawadayaasha barnaamijka nagala qayb qaatay aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka ay noola wadaageen sheekooyinka la yaabka way markaasi la kulmeen maadaama barnaamijka uu yahay sooyaalka nolosha waa laba waqti oo kala duwan xilli aad faraxsan tahay oo aad la kulanto waxyaabo ku farxad geliya xilli dhibaato ah oo aad la kulanto waxyaabo dhibaato ama caqabado ama sidoo kale la yaab ah iyo xilli markaasi qofka laba si uu yahay mar uu noloshiisii hormariyo uu horumar ka gaaro ama waqti ciila oo yani nolosha u diido inuu hore u socdo oo dib u dhac u keeno markan baashe adiga haddaan ku weydiiyo maxaa kugu yaabadnaa wallahi waxyaabaha intisaar ugu yaabka badan qofka bini'aadamka qabsado waxaa ka mid ah yaab kama weyna qof ilaa intuu dhashay ilaa intuu soo baarayay runtii jawiye dadku dawlad la'aanta ayaa igu ah waxyaabihii ugu weyn igu yaabka badnaa nolosha ma arag system dawladeed oo shaqeynaya marka wadamada qaybta marka tagtid qofku uu aado ama wadamada dawladaha ka dhisan yihiin qofku tago istacajib waxyaalaha qaybta baa kala noqonaya inagu wadankeena yani wax walba waa free wax yani ka dambeyntii iyo qofku systemaad wax ugu weyn wax la yiraahdo dawladdu waa hooyo hooyadu ilmaha iyada barbaarisa iyada ilaa iyo heerka uu qaangaarkiisa soo gaarsiisa laakiin dawlad la'aantu waa hooyo la'aan qofku ku dhacda anigu waxaan oo kale sababtoo ah waxyaalo badan oo qofku way arag ku noqon lahaa ayaa ku noqonaya istacajab marka aragti marka meel kale timaadida ama aragtida la dawladdu nooshahay ama dadweynaha dawladahaas u nool marka waxyaabaha nolosha ugu yaabanahay qofka waa hadda is weydiiyo ilaa iyo markay qof aqal garaad yeelato ilaa hadda dawlad iyo system عادي مقال هم وجه لكن سيستم أهان إيه كلا دنبين أهان أول أهان أنشر وحياة يقول يقبل أو سيدا ودن كان أو كله ما كبرت aad baad u mahadsantahay baashe barnaamijka caawa ayuu ila daadinayay wariyaheena maxamed baashe khaliif dhanka farsamada waxaa gacan weyn inaga siinayay injineer cabdixakiin ilbuur iyo silfiya annagoo isku duuban dhammaan bahda telefishinka RTN waxaan idin leenahay nabadgelyo